واي ترامب قصل ديار مطاي خطبدي ترامب يو ان او كجيدي اي سو غغودي عقدad hadda kor uu qabay caqdad uu qabay oo yaa fursadan wuxuu Trump wuxuu muuqday fursadan inuu gaadhay UN ka hadda kor xarsh u hayay xarsh waxa waaye intuusan madaxweyne noqonin ganacsadu ahaan jiray Donald Trump ganacsade waliba guryaha iyo afarahaas ku jiro real estate wax loo yaqaan guryaha dheer dabaqadan dheer oo dhisay hadda kor wuxuu dhahay asaga dhow sheega boqolka idin wada hadda kor wuxuu yiri UN ka waxa u soo bandhigu dhahay qorshe 500 milyan oo dollar isiya waa idin dhisa guriga hadduu ay dhex joogaan UN ka xarunta weyn oo ah New York oo wuxuu yiri mutulaal casri ah daaqadaha albaabada saqafka darbiyada idaga yaabisin way ka diideen UN ku adkeeyeen waa Kofi Annan waagu ka ahaa xogayaha guud Trump marka xarashkaas uu u hayaa oo asaga way diideen hay'ad kale ay qaateen Donald Trump arrinkaas maanta UN ku hor sheegay madaxda dhan oo fadhiso wax beesha iskugu ibaaday waa in adduunka laga sheekaysto dalalka isku salaamaan meesha la isku waa moogtahay wax ajandaha UN u dhiganayo dhan dhinac marsan u saxab kale bad horta muuqaalka qosol badan ee koowaad waa kana Donald Trump oo dhahayo laba shay maanta marka UN ka soo galay laba shay ee farta iga saareen UN ka laba shay isi waa tala baronta ay shaqeynaynin tala baronta waxa waaye baalka la iska arko shaashada oo madaxda markay qodbeynayaan qoraalada soo qoro iyo escalator labada shay oo aan bashaqeynaynin and then a teleprompter that didn't work. These are the two things I got from the United Nations: a bad escalator and a bad teleprompter. Thank you very much. Waya muuqaalka kale waa gara asagoo dhaashan barnaamijka 500 milyan oo dollar hadda koor markuu ganacsada ah intuu madaxweyne noqon ee lagu adkeey asoo sheegay waa kan known as Donald J. Trump. I bid on the renovation and rebuilding of this very United Nations complex. I remember it so well. I said at the time that I would do it for $500 million, rebuilding everything. It would be beautiful. I used to talk about, I'm going to give you marble floors. They're going to give you terrazzo. I'm going to give you the best of everything. You're going to have mahogany walls. They're going to give you plastic. But they decided to go in another direction, which was much more expensive at the time, and which actually produced a far inferior product. And I realized that they did not know what they were doing when it came to construction, and that their building concepts were so wrong, and the product that they were proposing. Way haddana waa kana asagoo dhahayo UN-ka Europe lagu soo duulay UN-ka ku soo duulay UN-ka xuduudihiina halis ku jiro UN-ki oo dhan waxa laga dhigay baal halis waa UN-ka waxaanu dhan isku keenay Europe wuxuu yiri xuduudihiina halis iyo bal wuxuu ka hadlayaa dadka qaxootiyada qaar oo Europe soo qulqulayo UN-ka markay Europe imaadaan UN-ka hoteelada ay degaan iyo waxyaabahaas UN-ka oo habay mogtay waa kana Trump oo fursadaas ka faa'iideysanayo Europe iyo rabo inuu isku diro UN-ka maadaama meesha kaliya maanta UN-ka laga taageersay Europe ay tahay firsamiye qaadi Your countries are being ruined. The United Nations is funding an assault on Western countries and their borders. sheekada kale UN-ka mashruucyada UN-ka nabad ilaalinta iyo waxaas bugta beenta ah marka laga soo tago UN meelo nabad ka ilaaliyo oo nabad ka dhacday weligeed lama sheegin adiga hadda soo qor taas marka laga soo tago Trump hornu ka sheegay taas marka laga soo tago UN-ka mashruucyada kale ugu qaraabto waxa ugu waaweyn jinsiyadda iyo waxyaabahaas moogtahay laakiin kan ugu weyn oo lacag faraha badan maalmahan ay ku cunaan UN-ka tuugada waa wax loo yaqaan climate change cimilada isbedelaya hadda xitaa madaxweynaheena anaga qaranka Soomaaliya ama lahaas Addis Ababa shir waxaas looga hadlayo cimiladaas kulaha qoraxda soo kulaanayso dadku dhalaalayaan kaaga sii daran kuwan cimiladu u ololeeyo sheeko waxa keeneen lo'da halala yaa la cunin hilibka yaa la cunin lo'da neefteeda iyo saxaradeeda iyo waxaas oo dhan halis ah geela iyo arigana way ku soo xoolihii dhan halalaay ku leeyihiin coos iyo qudaarta iyo hala cuno dadka barnaamijka cimilada wax ka aqriyo way fahmi karaan walla balba socoto waa ka Trump oo runta ka sheegay dhahayo kuwaan cimilada wax leey ka daba ordaan cimilada lagu baaba'ay hadda koor 50 sano koor UN-ku wuxuu noo sheegay in la dhimanayo haddaan saan waxba laga bedelin oo looda la cunay ala joojinin ayaga hadda koor noo sheeg waa kana marka asagoo dharbaaxsho ku dhufanayo Trump mashruucyadan UN-ka lacagta uu ku cuno oo dadka lagu shaqaaleysiyo oo bugta iyo beenta oo hadda xitaa Soomaaliya soo gashay
Whatever the hell happens, this climate change, it's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. Climate change, no matter what happens, you're involved in that. No more global warming, no more global cooling. All of these predictions made by the United Nations and many others, often for bad reasons, were wrong. We have still radicalized environmentalists, and they want the factories to stop. Everything should stop. No more cows. We don't want cows anymore. I guess they want to kill all the cows. They want to do things that are just unbelievable. waaya muuqaalka ugu dambeeyo un hor sidaasoo ku dharbaaxay un-ka dharbaaxasha xanuun badan ay gaartay iyo feer iyo suxul iyo jilib xaqiiqa markii laga hadlo trump hadda wuu jilibay waa kana muuqaal kale trump oo gebi ahaanba aamusiyey ama meel ku soo xiray yurubta iyo beentooda iyo munaafiqnimadooda soo xiray yurub waxay leedahay waxaa dagaalku waxaan taageeraynaa ukraine oo ruushka kasoo horjeednaa ruushka ayay kasoo gataan shidaalka ee baabuurta ku shubtaan kan guryaha u yaala wixii oo dhan ruushkayba kasoo gataanba ka war Can't be doing what they're doing. They're buying oil and gas from Russia while they're fighting Russia. It's embarrassing to them, and it was very embarrassing to them when I found out about it, I can tell you that.